markuu ugu horeysay Ilaahay baa mahad iska leh waxaan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caawa waxa farxad noo ah inaan goobjoog u ahaado ismaandhaaf yar oo ka dhex maray oo ka dhex dhacay guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed tabashada uu xogayaha ka hadlay oo ay qabeen waliba wakiilada ku matalaya dowlad goboleedyada xubnaha ku matalaya ay qabeen inta ismaandhaafkaas waxaan ku faraxsanahay isafgarad ayaa laga gaaray isfaham iyo xal ayuuna helay waxaan aad uga mahad celinaa xubnihii isku howlay oo xogayaha uu kamid yahay xubnaha kaleete ee mataqaanaa guddiga aad baan runtii uga mahad celinaa dabiicadda shaqada la wada leeyahay ka mid tahay mararka qaarkiis in la isku maandhaafo lagu kala ra'yi duwanaado mararka qaarkiisna waxyaaba fudud oo isfaham waa yar ayaa dhaca laakiin sida looga daba tegay oo runtii loo soo qabtay ayaan aad uga mahad celinayaa guddigan runtii waa guddi muhiimad gooniya oo aad iyo aad muhiim u ah dalka u haaya iyo dadka Soomaaliyeed waxay gacanta ku hayaan dastuurkii runtii dhamaystirka ummadda Soomaaliyeed ka wada sugaysay oo muddo dheer qabyada ahaa khilaafkaas marka caawa inay naga soo ebiyaan oo naga soo dhamaystiraan naga soo dhameeyaan way ku mahadsan yihiin isfaham waagaasna ay ku bedelaan isafgarad way ku mahadsan yihiin inaan goobjoog u ahaado inay xalkaas gaaraan waa waxa aan ka rabno qayb walba oo siyaasadda Soomaaliya ka mid ah runtii wax kasta oo la isku maandhaafaba in lagu bedelo isfaham wada hadal iyo wada xaajood isqancin iyo isu tanaasul aad iyo aadaan uga mahad celinayaa guddiga waana runtii meeshaan la rabno Soomaaliya oo dhan hay'adaha dastuuriga ah shaqadu ka wada dhaxayso guddiyada dhammaan xilkasnimadaas iyo qangaarnimadaas ay sameeyeen iyo bisaylka runtii dadweynaheenu maanta Soomaaliyeed waxay aad baahi weyn ugu qabaan meel kastoo ay joogaan midnimo waxa ay baahi weyn u qabaan si aan u soo celino madax bannaanideennii iyo dowladnimadeennii dadka xil saaran muhiimaadkan waaweyn ee dalku sugayo oo dastuurku uu ku ka yahay inay muujiyaan oo dadkana tusiyaan isu tanaasulkaas isfahamka wada hadallada marka ugu dambaysan heshiisyadu ay maraan ku yimaada iyo isfahamka aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyo xildhibaanadii u joogsaday ayaguna in ay arintan xal loo helo waxaa kaloo mahad celin mudan guddiga guddoomiyahooda iyo guddoonkoodaba aan dhaho oo u garjilcanaaday garti aan u dhiganay oo la yiri wixii aan ka sheeganay ka garaabay isla markaasna ma aragtay sidii ugu toosneed in lagu xalliyo aqbalayna aaday u mahadsan yihiin dhalinyaradii oo gaararkiiga fafadhida hadda oo ma aragtay maanta dadkii dooda qabay ku jiray ee ayaguna markii loo galimay gartay inay galiinkooda qaataan ayaguna aaday u mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabaa maanta waxaa meediyaha ka baxday cabasho ay cabanayeen isteedyada ma ahayn cabashadaasu mid mucaarado looga jeeda ma ahayn mid in wax lagu carqaladeeya la rabana ma ahayn si kastaba ha noqotee hadda wax xaasahay iyo xaqaladahay ma la dhahayo waxaa la joogaa hadda xaaladan la joogo warseen wax u saxnaa markii aan qiimeynay xaaladda dalku uu ku jiro iyo duruufaha taagan iyo shaqada aan hayno aan ka shaqaynaynay oo dastuurka ummadda Soomaaliyeed ahaa oo la rabay in asaga khilaafaadka lagu xalliyo iyo dhibaatooyinka taagan in asaga dhexdiisa meeshii looga shaqaynayo xoogo khilaaf uu ka yimaado waa aadan aan uga xunaa waana ka cudur daaranaynaa arrintaas inay dhagaha ummadda Soomaaliyeed ay gaarto ma jeclaysan kumana faraxsanayn laakiin wax kastaba ilaahay xaqiisii ka qoran yihiin kana dhacaan
marka waxaan rabnaa inaan sheegno wixii anaka aan ka qaylinaynay oo nuquladan ay ugu horeeyeen waa kuwaana oo hadda horteena yaalla waxyaabihii kalshintiriska iyo waxyaabihii aan ma aragtay la tabanaya tabashooyinaa jiray wixii oo dhanna xaqiiqatan aada loo dhexgalay galabtoo dhammaa laga shaqaynayay waana la xaliyay marka waxaan rabaa inaan ummadda u sheego inaysan jirin wax khilaafa ee guddiga dib u eegista la socodka dastuurka inaan agtooda wax khilaafa aysan ka jirin arrintaasuna ay dhammaatay aad iyo aadaad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubno ka mid ah guddiga la socodka iyo hirgelinta dib u eegista dastuurka OC loo yaqaano xubnahaasoo maanta xoogaa tabasha shaqada guddoonka iyaga guddoonkaan ka mid ahay guddiga OC muujiyey tabashadaasoo khusaysay gudbintii shintiriska amba jadwalka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka la geeyey oo ay ismoodsiiyeen in shintirisku uu ahaa in marka hore laga abruuf gareeyo guddiga balse ay ahayd shaqada shintiriska gudbintiisu shaqa uu guddoonka guddigu iska lahaa guddoomiyaha guddiga guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha waanu u gudbinay maalintii shalay ahayd guddoomada labada gole iyo tabashooyin kale oo ay qabeen oo iyagana aan iska turxaan bixinay iyaguna sheegi doonaan sidii ay u arkayeen iyo sidii ay wax isku bedeleen marka waxaan halkan usoo fadhiisannay iyadoo wasiirkuna na weheliyo inaanu intaa iska shaafino oo u sheegno shacabweynaha Soomaaliyeed in tabashadaasi ay meesha ka baxdo nuqulkii ay lahaayeen weli maanaan arag oo markaa madbacadda jirayna aanu hadda ay arkaan oo qaataan akhristaan waa nuqulkii aanu ansixinay sabtidii toddobaadkan ee guddiga OC markii uu ku soo wareejiyey guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista oo madbacadda jiray oo production ku maqnaa ayaa maanta productionkiisa soo idlaaday oo la daabacay kaasoo aanu berri rabno inaanu baarlamaanka Soomaaliyeed horgeyno si ay uga doodaan aragtidooda ugu darsadaan markaan nimankii saaxiibaday markaan iswarsannay nuquladii isla aragnay tabashooyinkii meeshii waa ka baxeen wasiirkuna arrinkaasu ku soo baxay oo uu magaranaysaa ayay ka qayb qaatay marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allihina abuurtay oo halkaan isku keenay kadib waxaan mahadcelinayaa xogayaha guddiga senator Saciid iyo xubnaha kale ee guddiga sidoo kale waxaan mahadcelinayaa wasiirka dastuurka iyo cadaaladda sidoo mas-uulka iga horreeyay sheegay arrin badan oo isjijiid baa jira Soomaaliya in caqabado badan baa yaalla culayskii ma doonina culays kale oo ku kordha raggana sidiisaba haddii gogol loo dhigo waa kii fadhiista marka gogashiina noo dhigay iyo wadaxaajoodkii aan galnay tanoo maanta aan taagnayn guul buu ku soo dhammaaday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in tabashadii aan ka qabnay nuquladii shintiriskii ama jadwalkiiba la xaliyey ilaahay ka sokowna mahaddaas uu leeyahay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka saan hore u sheegaba ah hogaamiye saxa